madaxweyne Ibrahim Ra'iisi, wasiirkii arrimaha dibadda Xuseen Amiir Cabdullaahi iyo dhowr kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shil diyaaradeed oo helikabtar ah kaasi oo dhacay Axaddii kuna dhacay waqooyiga galbeed ee Iiraan sida uu sheegay TV-ga qaranka ee Iiraan. Haddaba maxaan ka naqaanaa Ibrahim Ra'iisi, madaxweynihii mayalka adkaa ee aadka ugu dhawaa hogaamiyihii ruuxiga ahaa Ayatollah Ali Khamenei. Ninkani 63 sano jirka ee xilka loo doortay bishii Agoosto ee sanadkii 2021 waxa uu hore u ahaa madaxa waaxda garsoorka. Ibrahim Ra'iisi waxa uu sanadkii 1960 ku dhashay Mashhad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Iiraan isla markaana hooy u ah Shiicada. Aabihiis oo ahaa wadaad waxa uu dhintay markii uu Ra'iisi 5 jir ahaa. Ra'iisi oo xirta dharka dhaqanka Shiicada ayaana raacay raadka aabihiis, wuxuuna isagoo jira 15 sano bilaabay in magaalada Qom uu aado waxbarasho. Isagoona arday ayuuna ka qayb qaatay dibadbaxyo looga soo horjeeda maamulkii Shah ee ay galbeedku taageerayeen, kaasoo xilka looga qaaday kacdoon Islaami ah oo uu hogaaminayay Ayatollah Ruhollah Khamenei. Kadib kacdoonku waxa uu ku biiray garsoorka, wuxuuna dhowr magaalo ka noqday dacwad ooge, iyadoona isla markaa uu tababar ka qaadanayay Ayatollah Khamenei oo noqday madaxweynaha Iiraan sanadkii 1981. Ra'iisi ayaa noqday ku-xigeenka dacwad oogaha ee Tehran xilli uu markaasi jiray 25 sano. Isagoo xilkaas hayay ayaa waxa uu noqday mid ka mid ah 4 xaakim ee ka howlgeli jiray maxkamado qarsoodi ah oo la sameeyay sanadkii 1988 kuwaasoo loo aqoonsaday guddiga dhimashada. Maxkamadan ayaana dib u maxkamadeysay kumanaan maxaabiis hore loogu xukumay xabsi sababo la xiriira inay howlo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin. Tirada saxda ah ee dadka ay maxkamaddu ku xukuntay dilka lama hubo, balse kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ilaa 5,000 oo isugu jira rag iyo dumar la dilay laguna aasay xabaalo aanan la calaamadeynin, taasoona loo arkay dembi ka dhan ah bini'aadanimada. Hogaamiyaasha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ma beeniyaan in dilkaasi la fuliyay, balse faahfaahin kama bixiyaan kiisaska shakhsiyaadkii la dilay. Ra'iisi ayaana dhowr jeer beeniyay inuu ku lug lahaa xukunadaasi dilka, balse waxa uu sidoo kale sheegay in arrintaasi uu amray hogaamiyihii hore Ayatollah Khamenei isla markaana loo eegay dhanka fatwada iyo diinta. Ra'iisi waxa uu noqday dacwad oogaha Tehran kadibna ku-xigeenka madaxa garsoorka ka hor intaana loo magacaabin dacwad oogaha guud ee Iiraan sanadkii 2014. 2 sano kadib Ayatollah Khamenei ayaa u magacaabay madaxa mid ka mid ah ururada diimaha ugu muhiimsan Iiraan uguna dhaqaalaha badan ee Astaan iyo Qadis Razavi. Ra'iisi waxa uu hirgeliyay isbeddello horseedaya yareynta tirada dadka lagu xukumo dilka. Si kastaba, Iiraan ayaana sii waday inay dil ku fuliso dad aad u badan marka loo eego dalalka kale. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaana cunaqabateyn ku soo rogay Ra'iisi sabab la xiriira taariikhdiisa xuquuqda bini'aadanimada ee sanadkii 2019, isagoona ku eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa dilka dad aan qaangaarin xilligii la sheegay inay ka qayb qaateen dibadbaxyada ay soo abaabuleen mucaaradka dhaqdhaqaaqa cagaarka ah kadib doorashadii lagu murmay ee dhacday sanadkii 2009. Wax yar ayaa laga yaqaanaa nolosha gaarka ah ee Ra'iisi marka laga reebo in xaaskiisa Jamilah ay wax ka dhigto jaamacadda Shahid Beheshti ee Tehran iyo inay isu dhaleen 2 gabdhood. Sodogii waa Ayatollah Ahmed. Intuu xukunka dalka Iiraan hayay waxa uu madaxdii ka horeysay kala mid ahaa sida adag ay isku diidan